walaalo saaka wakti ay ahayd madaxweynaha waad ogtihiin inuu xilkii uu iska wareejiyey saaka 9 subaxnimo ayaa gurigiisii waxaa isku hareereeyey ciidan ilaa 6,000 oo gaadhaya oo wata ilaa 800 gaadhi oo gawaarida gaashaaman ee kuwa loogu talagalay diyaaradaha iyo helikobtaro iyo taangiyo iyo beebey wax ayna wadanin ma jirto ayay gurigiisii isku hareeriyeen halkaasay ka qabteen iyaga oo jir dilay ayay halkaa ka kaxayseen oo diyaaradii helikobtarta ahayd ay saarteen marka la wadayay madaxweynihii hore cabdi maxamuud cumar waxaad sheegtay in la jir dilay annaguna waxaan maqlaynaa warar ka duwan kuwa oo ah in ciidamada federaalka ethoobiya ay u gelbiyeen dhinaca magaalada addis ababa oo uu raacay maxaa xaqiijinaya in jirdilka iyo weerarka aad sheegaysa u dhacay walaal horta anigu waxa weeye waxaan ahay nin suldaana waxa aan kuu sheegahayana waa wax xaqiiqda ah wax markay dhacaanna waad og tahay wararka wax beena unbaa la wada bixiyaa ninka kula hadlayo waa waxa aan kula hadlayo waa suldaan weeye sida aan kuugu sheegay ayay wax u dhaceen shalay madaxweynaha hadda kusimaha ah ee cabdi maxamuud cumar bedelay waxa uu sheegay in dowladda federaalka ethoobiana ay ogeyd jagada loo dhiibay arrintuna ay degan tahay xaaladdu ay degan tahay maxaa isbedelay markaa oo weerarkan keenay walaal wax isbedelay oo arrin caadi ah ma jirto magaaladay jigjiga ahayd xaaladeeda laftigeedu dadkii deganaa way wada kaxeen hal qof oo jooga intii yarada joogtana gaajo iyo biyo la-aan bay u dhiman hayaan haddaad rabtaana idinku dad kale xidhiir waad la samayn kartaan xabadna waa lagala daalay arrintuna sidaa anigu aan hadda kuugu sheegahaya ayay u dhacday magaaladii jigjiga ahayd iyo dadkii shacbiga ahna waxay u baahan yihiin gurmad degdega oo caalami ah in lala soo gaadho magaaladii iyaga unbaa jooga dadkii ku haray halkaaday xabad kala wada daaleen yay ugaarsanayaan iyagaa jooga magaaladuna waxay noqotay magaalo military bay noqotay Ethiopia constitution iyo sharci bay leedahay sharcigii Ethiopia la jabiyey maatadii baa la leynayaa yahanagii oo dhan baa la dhacay cadeerka dadkaygii oo dhan baa taxay intii ku hadeen